بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبي الذين بس والبا مقلك يجين سو غاري مال wanaagsan waxaad la socotaan Royal Talent Sport jimca wanaagsan صاحبي qodobada maanta ciyaaraha waaweyn aad kaga bogo doontaan waxa kamid ah Thiago Alcantara oo soo gaaray garoonka tababarka Liverpool Tottenham ayaa laba saxiix u dhow Gareth Bale iyo Sergio waxa aad ku soo wajahayn London ayaa la leeyahay Kai Havertz oo sharaxay sababta Chelsea ugu soo biiray laakiin صاحبي maal wanaagsan si walba maqalkayga idin soo gaaray aan ku bilawnay xidiga Liverpool dhawaan ee la soo siixatay Thiago Alcantara ayaa waxa uu ku soo wajahayaa garoonka Liverpool xidiga cusub ee kooxda Liverpool Thiago Alcantara ayaa wax yar ka hor soo gaaray garoonka tababarka kooxda Liverpool si loo dhameystiro ku biirista heshiiska kooxda Thiago ayaa Reds ugu soo biiray 27 milyan isagoo noqday saxiixii labaad ay kooxda Liverpool sameeyso Thiago Alcantara ayaa garoonka tababarka yimid kadib waxaana sidaasi daawacay wakaaladda Daily Football oo xaqiijisay in Thiago garoonka uu soo gaaray xidiga ayaa saacadaha soo socda si rasmi ah loogu dhawaaqi doonaa saxiixiisa isagoo qalinka ugu duugi doona 4 sano oo heshiis ah Reds uu kula joogi doono waa tahay aadna dhanka iyo Tottenham waxa ay soo wadataa ayaa la leeyahay laba ciyaartoy Real Madrid ay ka soo wadataa London ay ku soo wajahayiin waa Gareth Bale ciyaartoyga Sergio Regulation xidiga Gareth Bale iyo Sergio Regulation ayaa haatan soo gaaray magaalada London si ay u dhameystiraan heshiiska ugu biiriyeen kooxda Tottenham Hotspur Tottenham ayaa Real Madrid kala saxiixatay heshiis labadan xidig iyo xidiga Gareth Bale ayaa Spurs ugu soo biiri doona heshiis amaah ah oo hal ciyaareed ah kadib markii ay Real Madrid u sheegtay in ay doonayso xidigaasi dhanka kale xidiga Sergio Regulation ayaa ugu soo biiray kooxda Tottenham heshiis toos ah laakiin ku jiro shardi ay Real Madrid ka caawinayso in ay ula saxiixato xidiga mar kale ay doonayso ayaa la leeyahay labada xidig ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo saxiixadooda isla saacadaha soo socda sida ay wararku daawacayaan waa tahay waxaa la leeyahay Kai Havertz wuxuu sharaxaad ka bixiyay sababtii ugu soo biiray Chelsea wiilkan dhawaangalka ee kooxda Chelsea ku soo biiray Kai Havertz ayaa sharaxaad dheer ka bixiyay sababtii ugu soo biiray kooxdiisa waxaana ammaan kala dul dhacay macalinkiisa Frank Lampard saxiixa kooxda Chelsea Kai Havertz ayaa qiray in Frank Lampard uu yahay sababta ugu muhiimsan ee ugu soo biiray kooxda Chelsea xidiga Kai Havertz ayaa saxiixii ugu qaalisanaa ee kooxda Chelsea kadib markii Eden Hazard oo isaga tagay kooxda Chelsea xidigan 22 jirka ayaa ka ciyaaray garabka weerarka waliba weerarka beenta ah waxa uuna rajaynayaa inuu wax badan qaban doono ama wax badan uu ka caawin doono kooxda Blues uu hogaamiyo Frank Lampard Kai Havertz ayaa arintaasi ka hadlay daawan jiray marka aan ciyaaraha Frank Lampard waxa uu ciyaari jiray sida aan haatan u ciyaaro waxa uu tagi jiray weerarka si uu goolal u dhaliyo ama uu caawiyo waxaan jeclahay markuu ciyaartooyga ahaa waxa aan ku riyoon jiray inaan ka ciyaaro Premier League Chelsea marka aan ciyaarahay waxa uu leeyahay waxaan ku riyoon jiray inaan ka ciyaaro Premier League marka aan ciyaarahay ayaan ku riyoon jiray in Chelsea aan u ciyaaro ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay xidiga Kai Havertz way tahay saaxiibayaal waxaan nagala socotaa Royal Talent Sports fadlan haddaad channelkeena ku cusub tahay nagu soo biir saaxiib subscribe saar gambalelkana furo si aad muuqaaladeena aad ula socoto aad noqoto daawada naga mid ah intaan muuqaalkan xiga aan ku kulmi doono saaxiibayaal waxaan idinka tagay siyaasi nabadgelyo sports hormar leh